banaanbax si weyn lagu taageerayo Cali Cabdullaahi Cusuble hadalkii ka soo yeeray ayaa lagu qabtay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. banaanbaxaasi ayaa lagu soo dhaweeyay dhawaan hadalkii ka soo baxay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble. hadalkaasi uu ahaa in maamul sameynta gobolka Banaadir in gogashiisa la dhigi doono degmada Balcad. isku soo baxaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay nabadoono, salaadiin, uqaal iyo bulshada rayidka iyo xildhibaanada wasiirada Hirshabeelle. ugu horeen waxaa meesha ka hadlay nabadoonadii ka soo qayb galay. baaqa qaaliga oo ka soo yeeray madaxweynaha oo usuulo magaciisa ismaan maxamed xaleele oo hotaan loogu yahay Balcad مسلم كيلا كوهشة على تلينا كوهشة وعن نصيبه يا لمي دولة هيرشبيلة الدجموين كودوا بلانيين قبل كشبيلة اللي قبل كهيران والطن أيام وحان نصيبه يا لمي إلى وقال الله إن قوش الموضوع اللي الدجمة بعض وعن شرف نوعه يا وناك maanta waxaan joogno ay oo biriga noolo sheegi xafladda inaa waxa la dhigo goosha oo biriga alxamdulillah ya banaadir oo degmada Balcad la dhigo oo u gaar kasto waxa lagu galaayo oo noolo sheegi oo wasiirahayna iyo naydka doomiyahayna ka soo shaqeeyeen waa maasin guul ala siiyo oo madaxweynaha Cali Cusuble madaxweynahayna ballan qaaday gudoomiyaha ku ay ilaahan kana sidoo kale inta ugu taageersanay oo hiil waxa diyaar u nahay waxa farxad weyn oo ah hadaan degmada Balcad waxa farxad weyn oo ah inaan taageersanahay oo gogasha la dhigayo degmada Balcad aad iyo aad baan u taageersanahay dhabarkaan u xidaraynaa sharaf bay noo tahay. ugu dambeyn waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Balcad iyo xildhibaano iyo wasiiro iskugu jira. xafladan maanta waxay ku saabsan tahay walaalaha reer Banaadir ayaa gobol madaxweynaha baa oo soo diray madaxweynaha Cali Cabdullaahi Cusuble ilaahay ka ajirsiyo oo ah in reer Banaadir ay helaan xuquuqda goboladii kala ay heleen maadaama ay waayeen Banaadir oo heeray hooyo gobolada Soomaaliya hooyada inay hesho gogoshan waxa uu ka dhigay Balcad marka gogoshaas madaxweyne waxaan ku leenahay reer Balcad afkoodana ku hadlayo waa ku fasanta waa ballan qaadaynaa waana garabaan maxay reer Balcad oo dhan waxay ballan qaadeen inay gurigooda uga baxayaan inay soo dhaweeyayaan inay qayb ka qaadanayaan amnigu waa sugan yahay ciidamada ammaanka degmada iyo maamulka kulli wada howlgalaya ammaanka waa la xaqiijiyay annagoo la kaashanayna bulshada degan Balcad oo wadaniyiina jacayna dowladnimada oo dad hore u soo shaqeeyay haddana shaqadu ay noo bilaabatayna waa iska kaashanay in ay degmadu amnigeeda oo mid ugu kalsoonaan karo oo noqdo degmada Balcad oo gudoomiyuhu oo sidaan quruxda badan oo ugu soo dhaweeyay in ay walaalahood reer Banaadir ay ku helaan xuquuqdoodii gogoshii madaxweynuhu oo nayiri gudoomiyuhu oo ku soo yiri waxaan rabaa baaqi madaxweynaha gudoomiyuhu waa naga ajiibay heel Balcad oo anaguna message-kaas aan idin siinaa maanta inaad mar labaad iyo mar saddexaad naga ajiibtaan annagu waxaan rabnaa inay dadkaas xuquuqdooda helaan inaan dadkaas marti gelino inaad dadkaas maxaa la yiraahdaa xuquuqda ay ku lahaayeen matalaada Soomaaliya waa dad dhan qowmiyadan oo gobolka Banaadir la yiraahdo oo 3 milyan iyo bar lagu qiyaaso marka la sheegay maxaa la yiraahdaa tirakoobka beenta oo la sheegay waxaan u maleeyahay inay 5 milyan ka badan yihiin mana laha wax matalaada inay ma laha inta waxa dheer madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle baad uu soo jeediyay oo qiimaha badnaa mudan madaxweyne waan ka ajibnay leedahay degmada Balcad baaqaadi gudoonkii degmadu wuxuu leeyahay baaqaaga wanaajin. banaanbaxani ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble uu ku dhawaaqay in lagu qabto gogasha maamul sameynta gobolka Banaadir in la dhigo degmada Balcad. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Deeq Alfa Jubba Shabeelle News degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.